بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد dhammaan inta iga daawanaysa shaashadda waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa iga hadlinaya maanta oo aan miidiyahan u soo fuulay faraha bulshadana aan uga muuqanaya waxa weeye arrin waayadanba haysatay baraha bulshada oo ku saabsanayd xaajadii cabdimaalik muuse coldoon iyo iskuulkii abaarso iyo jaamacadda barwaaqo iyo wixii ka dhacay ee hadal ahaa ee cid waliba aqoonteedii iyo waxay la ahayd ay ka tidhi ayaa waxaan tabayaa kaalintii culimadu kalsooni badan ayay bulshada dhexdeeda ku leedahay. arrimaha noocan oo kale ah ee diinta xidhiidhka lalena iyaga loogu kalsooni badnaayo inay wax ka yidhaahdaan ayaan isleeyahay malaa dooddu way ku gu'i lahayd, laakiin waxaan ku diirsado ama arrinkaa si dhaba uga warrama ama xaaladda wejigeedii saxda ahayd wax ka sheega ma arag. marka waxaan jeclaystay wakhti yar oo kooban inaan ka tilmaamo aragti yaroo kooban oo ku saabsan dhacdadaas. waxaanse ka horraysiisanayaa islaamka aynu haysanno iyo cadaalad wanaaggiisaan tusaale yar idinka siin doonaa. arrintaasood mooddo inay salsallowdo xaajada maanta taagan. wakhtigii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu noolaa ee madiina uu ku noolaa waxaa dhacday qiso aad u la yaab leh oo ka tarjamaysa cadaaladda islaamka ka tarjamaysa. waxaa jiray nin la odhan jiray tucma binu ubayriq oo ashahaadanayay laakiin uurka gaal ahaa, munaafiqiintu ka mid ahaa. ninkaasu wuxuu habeen madow u dhacay reer jaarkiisa ahaa. waxaa guriga lahaa qataada binu nucmaan nin la yidhaah. wuxuu ka soo xaday tucma binu ubayriq diricii dagaalka lagu gelayay oo ninkaasi leeyahay qataada iyo kiish daqiiqi ku jirto. markii uu soo qaatay wuxuu ammaano dhigay nin yahuudiya oo yani dowladda islaamku ay siisay deganaansho iyo amni ayuu u dhiibtay u yidhi iyahay. kiishka daqiiqda ah hoostu ka daloolay muu arkaynin, waa habeen madow. daqiiqdii markaa way daadanaysay ilaa iyo gurigii oo alaabta dhiganaya u gaarsiiyey. halkii ayuu geeyey, ninkii yahuudigaaba u dhiibtay. waagii markuu bariyey raadkii daqiiqda la soo raacay, gurigii yahuudiga ayaa la yimi. sayd binu samiin baa la odhan jiray yahuudigaasna. arrinkii isagii baa lagu eedeeyey. isagiina uu isberi yeelayoo wuxuu yidhi ammaano ayaan u hayaa, alaabtan waxaa ii dhiibay ninka la yidhaha tucma binu ubayriq. intaas markay dhacday ee arrintii ay muuqatay ayaa waxay ka baqdeen, qabiilkii uu la dhashay tucma ayaa waxay ka baqeen in arrintu fashilanto, dabadeedna inay arrinta dedejiyaan xukunkeeda ayay go'aansadeen. iyaga oo qabiil dhan ah oo bani tufri la yidhaahdo ayay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam, ayaga oo nebiga ku dhiiri gelinaya inuu go'aan dhaqso ah ka qaato qadiyaddan, ninkan yahuudiga ana uu shareecada ku fuliyo. nebigu calayhi salaatu wasalaam wax tallaaba intaanu qaadin
ayaa waxaa soo degay waxyi qur'aan ah oo suuratu nisaa ee ilaahay uu ku soo dejiyey ilaa qiyaami saaca ayaa waxyigii maalintaas soo degay ayaa la akhriyayaa oo qur'aanka ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey intaan go-aanka nebigu aanu soo ridin. ilaahay wuxuu dareensiiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu nebiga ilaahay u soo diray inuu dadka caadil dhexdhexaada ka noqdo, weligiina aanu qof daalima aanu dhabar ka saarin una doodin. waxaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala aayadahan qur'aankaee soo socda: inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq qaala allahu tabaaraka wa tacaala bacda acuudu billahi min ashaytaan rajiim inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah walaa takun lilkhaa'iniina khasiima. qur'aankan waxaa lagugu soo dejiyey inaad dadka ku kala soortood ku kala xukunto. abidkaa intaad nooshahay khaa'in dhabarka ha saarin oo ha u eexan. wastakfir illaaha ina allaha kaana gafuuran raxiima. ilaahayna dembi dhaaf weydiiso warkaa aad ka dhegaysatay nimankaa munaafiqiinta ah ee munaafiqa u doodaya. walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum. abidkaa ha u doodin oo looyar ha u noqonin qowmka naftooda khiyaamaynaya. ina allaha laa yuxibu man kaana khawaanan ahiima. ilaahay agtiisa wax qiimo ah kuma loo ilaahay subxaanahu wa tacaala ma jecla qof kastoo khaainnimo badan oo dembi badan. yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah. qowmkanaad arkaysaa ilaahay kama baqanayaan oo kama xishoonayaan, laakiin bini aadmi ayay iska qarinayaan oy leeyihin ceebtiinna yay arka. wa huwa macahum id yubayituuna. ilaahay baa ogaa markay shirayeen saqda dhexe maa laa yardaa min alqowl, waxaan ilaahay marnaba raalli ka noqonayn. wa kaana allahu bihi muxiita. ilaahay subxaanahu wa tacaala warkooda oo dhan wuu ka warhayey. iyagiibu markaa ilaahay la hadlayaa kuwii u doodayay munaafiqa. haa antum haaulaa'i jaadaltum canhum fi lxayaati اddunya. halkaan uga socdaa waa halkan. haa antum haaulaa'i kuwiinanow jaadaltum canhum daalimiin baa u doodeen fi lxayaati اddunya intan nolosha gaabana. faman yujaadilu allaha canhum yowma alqiyaama. bal yaa u doodi doona maalinta qiyaamaha am man yakuunu calayhim wakiila. yaa wakiil iyo daanyaqaad u noqon doona haddii maanta adduunyada ay badbaadaanba ay samcad ah u raadisaan, maalinta aakhiro yaa u doodi doona. aayadaha qur'aankii waxay inaga nahyinayaan dulmiga iyo gardarrada inaan marnaba garab la saarin. waxaanuu rasuulku inooga digay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ruuxa madluumka ah oo laga gardaran yahay inuu ilaahay ducadiisa markiiba uu aqbalo. baryada qofka madluumkaa ilaahay markiiba wuu aqbalaa. waxaanuu ilaahay inooga digay habaarka qofka madluumka ah inaynu qaadanno. waxaanuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiid saxiixa: itaquu dacwata almadluum fainahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab. iska jira oo iska ilaaliya habaarka qof la dulmiyey. ha dulminina qof haddaad dulmisaan habaarkiisu idin seegi maayo, sababta oo ah ruuxa madluumka ahee la dulmiyey iyo tugsiga rabbi wax allaaliya wax xijaabahoo u dhexeeya ma jiro. waxaa kaloo aada iyo aada looga digaa dadka cuqaashi ay ka digi jireen iyo sugaanyahanadu in qofka awood isbidaa aanu awooddiisaa tala saaran oo aanu dadka ku tacadiyin. haddii uu ku tacadiyana hadduu markaa uu isagu hurdo inaanu qofkii la dulmiyey aanu seexanayn xanuun darteed, ilaahayna uu arkayo aqbali doono. laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran faadulmu aakhiruhu ya'tii binnadami. laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran. haddaad awood iyo tabar isbiddo dulmi ha shaqaysanin. faadulmu aakhiruhu ya'tiika binnadami. haddaad wax dulmido gebagabahiya aakhirka waad ka nadaamoon doontaa. naamat cuyuunuka waalmadluumu muntabihun.
yadcuu calayka wa caynullaahi lam tanami naamat cuyuunuka adigu waad iska raaxaysanaysaa ruuxan wax dulmiyayow laakiin ruuxii aad dulmiday gogosha ma ledayo gogosha uu qaban lahay dulmiga aad u geysatay darteed wa caynullaahi lam tanam ilaahay cayntiisuna ma seexato abad ilaahay ma seexdo laa ta'khuduhu sinatun walaa noom marka waxaan ka digayaa meesha dulmiga ku jiro ruuxaa dulmiga wada inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dulmigaa u dhaafaynin waxaa muhiim ah inaad ogaataan uheelinta gaalada loo hayliyo in ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabkiisa lagu mutaysanayo nin gabiyey baa wuxuu yidhi gaal nin umidiidimay maqaam naara inuu geli diintaa u maragahee ma wax laga murmaabaa haddii ruuxu dabadhilif gaalada u noqdo waxay noqonaysaa aakhiro noloshiisu inuu ilaahay naar ku dambaysiiyo nin kalena wuu gebiyo wuxuu yidhi berye wuxuu gabraartaba markuu malagu soo gaadho berye wuxuu gabraartaba markuu malagu soo gaadho jahannamo inuu gaal ninka gaalo saacida muslimna gooyo xadhigiisa ninka gaalo saacida muslimna gooyo xadhigiisa berye wuxuu gabraartaba markuu malagu soo gaadho jahannamo inuu geli kitaab garanayaan sheegay qofka bini aadmigaee gaal u hiilinaya wuxuu la soo xaadirayaa gaalkaa uu u hiilinayo buu qiyaamaha la soo xaadirayaa oo nebigeennaa yidhi calayhi salaatu wasalaam almar-u maca man axabba yowma alqiyaama wax la hubo oon muran ka taagnayn weeye qowmkan maanta uu ka hadlay cabdimaalik muuse coldoon wuxuu ku sheegay inay yihiin cidi kama muransana oo gabadha la yidhaahdo joy ciisa inay tahay baadariyad diinta kiristaanka fidisa caddaynteedii baa la hayaa waxaana xaqiiqo ah qofku markuu diin leeyahay weliba wadaad ku yahay diintiisa mar walba inay la fakanayso inuu diintiisa faafiyo masalan haddaan anigu wadaad ahay oo caruur kiristaana la ii dhiibo marnaba mar kastoon jaanis u helo diin islaamka inaan u sharxo oo aan u qurxiyo waan ku dadaalayaa kuubar ayuu ka hadlay cabdimaalik kuubar muran kama joogo waana nin khaniis ah oo haddii alla yidhaahdo edebdarro yaqaana caalamka iyo uunkana meelo fara badan ayaa laga diiday inta uu dalbaday inuu fiise ku aado marka dadka caynkaas ah waxa keliya ay soo saari karaan waa dad iyaga uun la mid ah oo waxaa la yidhaahdaa dheri kastaaba wuxuu dhididaa waa waxa gudihiisa ku jira waxaan maqlayay dad badan oo qaarka odhanaya cabdimaalik muuse coldoon ma kelidii baa wadaada runtii cabdimaalik kelidii diinta ma yaqaan laakiin marka ay sayma gasho cidhiidhi ay gasho marba ruuxun baa ilaahay ku karaameeyaa inuu diinta u hiiliyo diinta in loo godoboobana waa muqarabaadka iyo waxyaalaha ugu fiican ee ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala am xasibtum an tadkhulu ljanna walamaa yaأtikum mathalu aladiina khalow min qablikum masadhum اlba'saaءu wاddaraa aliflaamiim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun iyo aayado badan baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa in diinta loo godoboobaa ay tahay waxyaalaha ilaahay loogu dhowaado oo ilaahay jecelya tabaaraka wa tacaala maanta tanuu cabdimaalik ka tiraabay waa arrin khusaynaysa caqiidada iyo diinta islaamka ilmaha yaruna haddii aanu diin islaamkiisa aqoon badan u lahayn waa la habaabin karaa arrinkaana nasteexo iyo talo ayuu ka soo jeediyey in lagu ceebsadana anigu uma arkayo waxaan leeyahay cabdimaalik muuse coldoon runtii waa shakhsi ku sifaysan sifooyin uu rasuulkeennu ka markhaati kacay ruuxa dhaqankaasoo kala yeesha inaan ilaahay garabkiisa ka baxayn
maalintii ay qalbiga u dejinaysa khadiija bintu khuwaylid radia allahu tacaala canha wa ardaaha nebiyullaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamuhu calayh sifooyin bay tilmaantay ruuxa ku dhaqma aanu ilaahay dullaynaynin subxaanahu wa tacaala. waxay tidhi kalla abshir fawallaahi laa yukhzika allaahu abadan. waxay tidhi abidkaa ilaahay ku dullayn maaye. sababay sheegtay markaa khadiiji ilaahay loogu dhowaado, qofka bini aadmigaana ilaahay ugu hiiliyo marka uu cidhiidhi galo. innaka latasilu raxima. qodobka koowaad waxay tidhi waxaad xidhiidhisaa sokeeyaha. wa tasduqu alxadiida, warkana been kama sheegtid. wa taxmilu lkalla, dadka kadeedanna waa taageertaa. wa tuqri dayfa, martidana waad karaamaysaa. wa tuciinu calaa nawaa'ibi alxaq, dadka dhibaatadu ku timaadana waad u gurmataa. in badan oo aan isyeelyeel ahayn oo aan u filaya insha allahu inuu dar ilaahay ka ahaa ayuu ummad badan ayuu u gargaaray, oo ilaa iyo xayawaankiibaa gargaarkiisii iyo gurmadkiisii uu gaadhay. marka wiilkaas waxaan leenahay sabir oo dulqaad yeelo, ilaahay baa kuu gargaari doona. wakhtiguna sidaa ahaan maayo, dadkuna galsho maahoo guri maayaane taariikhdu way isqori doontaa. haddii ilaahay ka dhigo maanta waddadaad haysaa waxay iila muuqataa waddadii axmed binu xambal markii ay culimmadii islaamku ay ka gabadeen masaladii khalqulqur'aanka ee lagu riiqday. ninkii u kacay diinta ee xaqa caddeeyey axmed binu xambal buu ahaa. xabsi buu u galay, karbaashna wuu ku mutaystay. axmed binu xambal baa waxaa lagu yidhi ma adigoo keliyaa diinta wax ka yaqaan mise kelidaa baa difaaci kara, ilaan far keliyii fool ma dhaqdeen. soo tan culimmadii kaloo dhani ay ka gabatay maxaad uga gaban weyday? sayidinaa axmed binu xambal hadal aad iyo aad u murti badan buu ku hadlo oo wuxuu yidhi idaa akhadat alculamaa'u taqiya wa jahila aljaahilu mataa yucrafu alxaq. haddii culimmadii ay xeeladaysato oo xaqii ay caddayn kari waayeen, dadweynihiina waxa la ysku hayo aanay aqoon u lahayn, ciddii u caddayn lahaydna ay ka gabato, mataa yucrafu alxaq, goormuu xaqu caddaanayaa? waa sayidinaa axmed binu xambal waxau noqday shaykhu ahli sunna waljamaaca ayuu noqday. intaasoo sannadoodna xabsi buu u galay godobta diinta. sayidinaa abaabakar radia allahu tacaala canhu wa ardaahu maalintii rasuulkeennu wafaaday ee carab oo dhan badankeedii ay rudoobeen 3 magaalo mooyaane, go-aankii adkaa ee abaabakar uu qaatay baa lagu badbaaday bacd allahi tabaaraka wa tacaala. sayidinaa cumar baa wuxuu leeyahay in badan baa go-aanka abaabakar uu qaatay aan kala dagaalamo oo aan kala dooday. waxaase ii caddaatay in ilaahay abaabakar qalbigiisa ku sharaxay. deedna waxay ku badbaaday diintii islaamku bacdallaahi tabaaraka wa tacaala go-aankii geesinimada lahaa ee sayidinaa abaabakar radia allahu tacaala canhu wa ardaah uu ka qaatay riddada. marka weligeedba way soo dhici jirtay intay mashkilad iyo imtixaan dadka lagu kala reebayaa uu yimaado in qaybna ilaahay uu ku dallacsiiyo, qaybna ilaahay wain tatawallow yastabdil qowman gayrakum uma laa yakunuu amhaalakum. waxaan leeyahay oo aan fariin u dirayaa kolley si uu u maqlaba haddii ilaahay yidhaahdo, cabdimaalik muuse coldoon sabir baan ku leeyahay. ilaahay baa kuu maqan, islaamkuna waa kula jiraan, xaquna waa caddaanayaan. waxaanan aad iyo aad u hambalyaynayaa xaakimkii maxkamaddii koowaad galay oo si cadaaladi ku jirto, sidaan anigu aaminsanahay si cadaaladi ku jirto go-aankaagii u riday ayaan aad iyo aad u hambalyaynayaa. ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro maalinta qiyaame ayaan ilaahay uga baryayaa. adigana waxaan ku leeyahay sabir. inta cabdimaalik muuse coldoon ka soo hor jeedaan ha isweydiiso cabdimaalik maxaa ka maqan? cabdimaalik muxuu rabaa? cabdimaalik wuxuu rabaa ubadkeennu inay islaaxaan. cabdimaalik wuxuu rabaa dalkeennu inuu helo cid maya tidhaahdo wixii gardarriya xaqa.
xaqdarro ah cid tidhaahda maya oo ku dhiirata ayuu rabaa in la helo waana la helay waxaana ku leeyahay jazaaka allahu khayra aljazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu